Mr. President. Mr. Prime Minister. It's good to talk to you. And Mr. President, mudane madaxweyne, Mr. Prime Minister, mudane ra'iisul wasaare. Labada hadal waxaa isdhaafsaday ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo madaxweynaha Somaliland. Hadalku waxaa qaatay ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo yidhi, "It's good to talk to you." Way fiican tahay inaan kula hadlo. before anything else, I want you to know that I'm signing now, as we speak, Israel's official recognition of Somaliland and its right of. Before anything else, ka hor wax kalaba ayuu yidhi madaxweynihii Israa'iil, I want you to know that I am signing now as we speak Israel official recognition. Ka hor wax kalaba waxaan doonayaa inaad ogaato hadda inaan saxeexayo ictiraafkii rasmiga ahaa ee ay Israa'iil ictiraaftay Somaliland inaan saxeexayo ayuu yidhi, and it is rights of self-determination iyo xuquuqdeeda ayo ka tashiga Somaliland inay xaq u leedahay iyadu wixii u wanaagsan iyo wixii u xun inay go'aan ka gaari karayso. Waayahay. Our friendship is seminal and historic. So I'm very, very happy and I'm very proud of this day. Our friendship, saaxiibtinimadeenu, is a seminal aad ayay muhiim u tahay and historic waana taariikhi. So sidaa darteed I am very, very happy. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. I am very proud of this day. Maalintan aad ayaan ugu faanayaa. And I want to wish you and the people of Somaliland the very, very best there. waxaan doonayaa to wish you inaan kuu rajeeyo adiga and the people of Somaliland iyo shacabka Somaliland the very, very best day sida ugu wanaagsan. I think this will be a great opportunity for expanding our partnership. I think this will be waxaan u malaynayaa tani inay noqon doonto a great opportunity fursad weyn for expanding aynu ku ballaarinayno our partnership iskaashigeena. We intend to work together with you on economic fields, on agriculture, in the fields of social development. We intended to waxaan ugu talagalnay work with you inaanu idinkala shaqayno on economical field dhanka dhaqaalaha, on agriculture dhanka beeraha, in the field of social development iyo dhanka horumarinta bulshada. All the things that we hope we can assist you, and we obviously believe in this friendship. All the things dhammaan waxaan oo dhan that kuwaasoo we hope aanu rajaynayno we can assist you inaanu idinka caawin karayno. We anaguna obviously sida iska muuqata mise iska cad believe waanu aaminsanahay in this friendship saaxiibtinimada. And I have to tell you that there is a lot of excitement here in Israel as well. So I have to tell you waa inaan kuu sheegaa that there is a lot of excitement inay jirto xiiso badan here in Israel oo halkan Israel laydinka hayo. I want to use this opportunity, sir, to invite you to an official visit to Israel at your convenience, and I hope very much to see you here soon. I want to use this opportunity waxaan doonayaa inaan uga faa'iidaysto buu yidhi fursaddan sir mudane to invite you inaanu kugu marti qaadno to an official visit booqasho rasmiyo to Israel markaad Israel ku imanayso at your convenience waqtiga kugu habboon. I hope very much aad ayaan u rajaynayaa to see you here soon inaan halkan si dhaqsaa kugu arko. This is a wonderful day. It's a historic day, and of course I'll communicate to President Trump your willingness and desire to join the Abraham Accords. This is a wonderful day. Tan waa maalin cajiib ah. It is a historic day. Waa maalin taariikhi ah. And of course, طبعا, I will communicate to President Trump waan kala xiriiri doonaa madaxweyne Trump your willingness diyaar ahaanshihiina and desire iyo rabitaankaad rabtaan to join inaad kusoo biirtaan an Abraham Accords. Abraham Accord haddaan kaa dabageeyay daawaday waa heshiis ka dhexeeya Israa'iil iyo wadamo ka mid ah Carabta kaasiyoo
la saldhigay oo la aasaasay 2020. So thank you, Mr. President. Please convey my best regards and the best regards of the people of Israel to the independent people of Somaliland. So thank you mahadsanid buu ku yidhi Mr. President mudane madaxweyne. Please fadlan convey my best regards iga gaarsii salaantayda ugu wanaagsan and the best regards of iyo salaantii ugu wanaagsanayd ee ka timi people of Israel shacabka Israel tuu ku socotana independent people of Somaliland shacabkii xorta ahaa ee Somaliland. Thank you, sir. That's a great moment and great historical day. The big five is here. The other group is the chairman of the party and the vice president. That's a great moment. Taasoo waqti cajiib ah and great historic day iyo maalin weyn oo taariikheed. The big fight is here. Dagaalka weyn halkan ayuu ka taagan yahay. The other group kooxda kale is the chairman of the party waa gudoomiyihii xisbiga and vice president iyo madaxweyne ku-xigeenkii and key officials are here. xubno kaloo muhiim ahina halkan ayay ku sugan yihiin. Mr. Prime Minister, I accepted the invitation and I am ready as soon as possible for that arrangement that can be made. Mr. Prime Minister, mudane Ra'iisul Wasaare, I accepted waan aqbalay the invitation casuumaadda and I am ready diyaar ayaan u ahay as soon as possible sida ugu dhaqsaha badan ee ugu macquulsan for that arrangement diyaargarowga that can be made kaasoo la samayn karo. We shall arrange it very soon, and please convey my warmest regards to your colleagues and to the people. Thank you, sir. Thank you very, very much. We should arrange it very soon. waa inaynu si dhaqsaa u qorsheynaa and please fadlan convey iga gaarsii my warmest regards salaan aad u diiran iga gaarsii your colleagues shaqaalahaga and to the people iyo shacabkaba. Thank you sir. Waad mahadsantahay mudane. Thank you very much. aad ayaad mahadsantahay. Mr. Prime Minister. Thank you. See you soon in Jerusalem. Next year in Jerusalem, we say. It's a few days from now. Thank you, sir. See you soon in Jerusalem. Dhowaan waan isku arki doonaa Jerusalem. Next year sanadka soo socda in Jerusalem. We say waxaanu leenahayba it's few days from now. waxay naga xigaba maalimo kooban. Thank you sir. waad mahadsantahay mudane. Sure, I will be glad to be in Jerusalem as soon as possible. Thank you. Thank you all. Bye-bye. Thank you. Thank you very much. Thank you. I will be glad to be in Jerusalem. aad ayaan ugu farxi doonaa inaan imaado Jerusalem as soon as possible sida ugu dhaqsaha badan ee ugu macquulsan. Thank you. mahadsanid buu ku yidhi and thank you all dhammaantiin kuna wad mahadsantihiin. Bye bye. Thank you. Salaam.